wardegdega saaxiibayaal waxaan rabaa inaan halkan idinku baahiyo xogtii ugu la yaab ka badneed saacadihii la soo dhaafay maxaa ka dhacay degmada Ceeldheer oo aadan ogeyn ciidamo ka tirsan kuwa macawisleyda deegaanka ee degmadaasi ka soo jeeda waxay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan mid kamid ah raggii ay ugu qarista badnaayeen kooxaha argagixisada ninkaas wuxuu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho laakiin hay'adaha ammaanku kama helin wax tixraac amni ah ilaa markii dambe argagixisadu halkii ay ugu tala galeen oo degmada Ceeldheer inuu halkaasi caqabada ka geysto una gudbo degmada ama deegaanka cusub weyn ee degmadaasi hoos yimaada laakiin sidii ay wax u qorsheynayeen ma dhicin mana socan waana sheeko ka yaabi doonta laakiin wixii dhacay ayaan halkan idinku baahi doonaa waxaan Ali Baash Cabdi siyaasi baan nagala socotaan muuqaalkan share garay wala wadaag saaxiibadaada waana ku maasan tahay la socoshada iyo la jaanqaadka wararkayga ma qorsheynaysaa inaad u dhoofto dalka dibadiisa mana raadinaysaa tikidhadii ugu jabnaa hay-adihii kufan haddaba shirkadda Mareeg Travel Agency Cargo oo looga haray fududeynta arrimaha safarka waxay diyaar kuula tahay wax walba oo aad uga baahan tahay fududeynta arrimaha safarkaaga adeegyada sigaarka u heli kartid waxaa ka mid ah tikidhada diyaaradaha duulimaadada caalamiga ah iyo kuwa gudaha oo qiimo jaban adeegyada dalkugalka visa service caawimaad buuxda oo ku saabsan habka fiisa dalbashada hoteelo raaxa leh oo ku habboon miisaaniyadaada ayaanu kugu diyaarinaynaa goob walba ama garoon walba oo aanu kaa dejinay xajka iyo cumrada oo si damaanad leh lagugu geynayo goobaha barakeysan ee xarameynka kuna darso waxaan ku haynaa Cargo 24 saacadood shaqeynaya kaasi oo degdegsiimo iyo damaanad leh alaabtaada meel walba oo dunida kamid ah daqiiqad kugu keenaya Mareeg Travel Agency Cargo oo looga haray fududeynta arrimaha safarka waxay xafiisyo kala duwan ku leedahay magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho wagaag xafiiska Nairobi oo ku yaala Islii James Streetka soo horjeedka Kulan Coffee suuqa weyn ee loo yaqaano Hoda Tower Festival xafiiska nambarkiisuna waxa uu noqonayaa F30 ama ugu hagaag xafiiska Muqdisho oo ku yaala suuq bacaad Roxon Mall garoon falo sidoo kalena dukaanka ama xafiiska nambarkiisu waxa uu noqonayaa F20 wixii intaasi faahfaahin dheer kala xiriir nambarada iyo ciwaanada kale ee shaashada ku qoran adigoo beegsanaya nambarada ku qoran shaashada hore ee muuqaalka Mareeg Travel Agency waa maareeyaha safarkaaga haddaba saacadihii la soo dhaafay degmada Ceeldheer ee bariga gobolka Galgaduud waxaa lagu qabtay mid kamid ah raggii loogu doonista badnaa kooxda argagixisada ka tirsanaa waayihii la soo dhaafay ninkan wuxuu ku dhashay degmada Caabudwaaq wuxuuna sidoo kale argagixisada ku beeray ama ku biireen ilaa sanadii 2011 waliba uu ahaa mid kamid ah ragga argagixisadu ay ugu jeclaayeen wuxuu sidoo kale bartay nooc walba oo tiknoolajiyada 4 sano gudahood marmar markay jirteen saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya oo waqti yar dawladda ka dhaxdalaca si taasi lamida intaasi yar maktabka ugu sareeya oo qaraxyada ayuu ka noqday mid kamid ah rag saraakiisha ugu muhiimsan sidoo kale waxa uu noqday mid kamid ah madaxda tababarada guud ee argagixisada ilaa uu uga gudbay mid kamid ah hogaanada sare ee amniyaadka hadda waa 2021 ilaa 2023 koonta loo diray wadanka South Africa markii la dilayay horjoogayaasha argagixisada waxa ay heleen in xogta wiilkan yar ay si weyn u doonayaan wadamada reer galbeedka iyo dawladda Soomaaliya xogtiisa markii la helay ogaadeenna safar dhulka ah ay marsiiyeen waxay u dusiyeen ilaa South Africa markii dambana waxa uu sheegay in dagaaladii qaboobeen Soomaaliya uu ku soo laaban karo waxaana codsaday mid kamid horjeegayaashii u sareeyay kooxda laakiin maxaa dhacay mataqaan halka marka la marayo wuxuu ka soo degay 2 toddobaad ka hor degmada Ceeldheer waa wararkii qiraalka ah afkiisa uu ka qartay inkastoo wali gungaarnaba aan laga diyaarin waxa la sugayaa in sheekadiisu ay noqoto tii ugu saameynta badneed Soomaalida dhexdeeda sheekada kale la yaab kala mataqaana markii uu soo galay garoonka diyaaradaha Muqdisho uu soo maray wali aan laga hayn wax tixraac amni ah wuxuu qaatay go'aan kale oo ku gaaray degmada Ceeldheer wuxuu ka safray halka loo yaqaano waqda suuq bacaad ee ka baxaan gawaarida gobolada dhexe u safra jidkaasi dheer oo maray ilaa hadda intaas oo bara control amni oo marayay ma jirin wax cilaaqaad amni ah ama tixraac amni oo laga heli karay maadaama waa nin isqariya aad isku qariya haddaba markii uu tagay kontaroolka degmada Ceeldheer waxaa baaristii koowaad marsiiyay ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya laakiin halkaasi markay sheeka marayso waxaa durbadiiba tuhun galay mid kamid ah ciidamadii saraakiisha ahaa ee macawisleyda wuxuu sheegay inuu ninkan ka shakiyay waliba uu ahaa nin argagixiso ah maadaama uu ninkaasi macawisleyda deegaanka ka soo jeedana ninkii su'aalo kooban uu weydiiyay waxa ay sababeen in la ogaado inuu ahaa mid kamid ah argagixisada ugu saameynta badneed ilaa hadda lama ogaan inuu yahay ninkii ama sargaalkii sida ahaa ee argagixisada ugu weynaa laakiin markii lagu wareejiyay taliska guud ee degmada Ceeldheer ama taliska booliska ee degmadaasi gaar ahaan taliya ku-xigeenka degmadaasi ahna kusimaha taliyada degmada Ceeldheer Axmed Xasan Cadaawi Axmed Najaad wax walba waxay iska bedeleen sidii loo qorsheynay hadda gacanta ila amaanka ayuu ku jiraa waxaana ciidankii qabtay ninkaasi ay mudan yihiin inay helaan nooc walba
oo abaalmarin qarana maadaama ay qabteen mid kamida ninkan wuxuu ka halis badan yahay oo ka saameyn badan yahay sida qaar aaminsan yihiin Axmed Deeriyaha godka ku hoos jira maxaa yeelay ninkaasi kaliya waxa uu bixiyaa amarada laakiin amarkaasi cid fulinaysa ma taqaana waa wiilkan yar ee sawirkiisa arkaysa muuqaalkan fogay oo gaarsiis saaxiibadaada waana ku maasantaa la socoshada iyo la jaanqaadka wararkayga